السلام عليكم صاحب بيال سولو هذا ميل والبا دنيا على ka joogtaan sida quraanka ba ku arkeen ninkii fircoon la oranayay ee xukumayay wadanka loo yaqaan Masar maalmaha kamida aha boqoradii halkaas soo maray ilaahnimada sheegtay yiri aniga ayaa ilaaha sidaad ka warqabtaan asaga iyo nabiga ilaahay uu diray Muuse aha wax dhaxmaray xiwaar aad u dheer wada hadal aad u dheer oo nabi ilaahay Muuse markii uu ka soo laabtay meesha la yiraahdo Madyan oo muddo 12 sano oo halkaas soo joogay soo ka cararayo fircoon iyo qoomkiisii markii uu Masar ku soo laabtay waa kii halkaas ku qaabilay oo ku wajahay ninka la yiraahdo fircoon wankii halkaas ugu mandhigay risaalada ilaahiga nabi ilaahay Muuse markii uu fircoon ka laalaadsaday oo ku yiri xabsigan ku dhigaya hadaadan ka laabanin waxan aad sheegayso ilaahan aan aniga ahayn oo aad sheegayso hadaadan ka laabanin jeelkan ku dhigaya waa ka yiri dadna nabi ilaahay Muuse waa kii istifaacay oo markaas yiri fircoon xujad baan kula yimid ilaahayna rumee waxaad sheeganayso ilaahnimadana isaga tanaasulo isaga tag xujooyinkii ula yimid nabi ilaahay Muuse waxa kamid ahaa ushii maska noqonaysi waa kii ushiisi markii uu sii daayay waa tii ushii mas noqotay oo golihii fircoon uu fadhiyay qasrigii madaxtooyadii fircoon waati lagu kala yaacay oo waxa weeye fircoon xitaa argagax weyn uu ku dhacay asaga iyo dadkiisii golaha fadhiyaba nabi ilaahay Muuse mar kale waa kii gacanta jeebka galiyay oo gacantiisii waati ay cadaanta noqotay hadaba saaxiibayaal muuqaalkan kii ka horeeyay ayaanu kaga soo hadalnay mawduucan asaga ah waxaan ay noo joogtay hadii aad soo daawatay muuqaalkii hore ninkii fircoon ahaa oo yiri nabi ilaahay Muuse ku yiri waxaad naftimidi waa sixir waxaad doonaysaa inaad sixirkaaga wadanka iyaga aad nooga bixiso oo wadanka inaad naga saarto ayaa doonaysaa oo adiga reer bani Israa'iil aad qabsataan hadaba saaxiibayaal fircoon waxay kula taliyeen nimankii madaxweynta oo golihiisa fadhiyay inay nabi Muuse iyo Haaruun ay arintooda dib u dhigaan fircoonna uu waxa la wixii saxara jooga wadanka Masar uu la yimaado maalin la isbalansado waxa Muuse la yimidna maalinta ayada inay saxaradu ay buriyaan ayaa tala lagu siiyay ninkii fircoon ah fircoonna Muuse ayuu wuxuu ku yiri waa inaad maalin noo samaysaa dadna nabi ilaahay Muuse waa ku yiri mawcidukum yawmuz zinati wa in yuhshara nasu duha ballankiin waa maalinta ciid ah dadkana in la isugu keeno meesha lagu ciido maalin barqa ah oo cad hadaba saaxiibayaal inta wixii ka dambeeyay ninkii fircoon ahaa waxa uu bilaabay inuu u fariin diro dhammaan goboladii Masar oo asaga waxa weeye uu xukumayay oo asaga dawladiisa hoos imanayay waxaan halkaasi loo diray fariinsidayaal oranaya ninkii fircoon ahaa wuxuu u baahan yahay nin kasta oo saaxir nin kasta oo wax yaqaan nin kasta oo erka fiiriya mid kasta oo kutubada fiiriya mid kasta oo wax faaliya oo wax sheega ayaa looga baahan yahay madaxtooyadii fircoon si loo wajaho nabi ilaahay Muuse daba saaxiibayaal fircoon wuxuu yiri uutuni bikulli saaxirin caliim mid kasta oo saaxira oo wax garanaya waa inaad keentaan waxa la wixii saxara joogay wadankii Masar ayaa isku soo ururay wana ay yimaadeen waxaana la gaaray maalintii ayada ahayd ee la ballamay maalintii ciid ahayd ayaa la ballamay dadweynihii Masar waqtiga ku noolaa oo dhanna arintii way ka warqabaan waxaana ay soo buuxiyeen oo ay soo buux dhaafiyeen goobtii ciid daba saaxiibayaal nimankii saxarada ahaa waxay isugu yimaadeen qasrigii fircoon waxaana ay ku yiraahdeen fircoon hadii aanu guuleysano oo Muuse ka raayno maxaad nasiinaysaa soo xoolo badan nasiin maysid deedna ninkii fircoon ahaa wuxuu yiri war xoolo iska daayay xoolo waad nacaysaane waxaad noqonaysaan dadka aniga ii dhow oo golahayga fadhiya ayaad ka mid noqonaysaan oo dawladda Masar meesha looga taliyo dadka fadhiyo talada Masar ay ka go'do ayaad qayb ka noqonaysaan xoolana waad nacaysaan ninka asaga ilaaha kala dadka ugu baaqaya ninka asaga waa inaad meel iga saartaan qaaluu a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin qaala na'am wa innakum idan la min al-muqarrabin xoolo waad helaysaan dadka golaha fadhiyo aniga ii dhowna waad ka mid noqonaysaan oo ra'yigooda taladooda waxa weeye la qaadanayo hadaba saaxiibayaal waxa la isugu yimid meesha ay dhahayd saxaradan tiradooda aad ay u fara badan tahay 7 ayaa hogaaminayso tiradoodana aad baa la isugu mandhaafay oo mufassiriinta iyo taariikhyahanuba ninba tira ayaa u sheega laakiin waxa la isku raacsan yahay inay aad u fara badan yihiin 80,000 ay ahayn waa la yiraahdaa tirada ugu yar oo aan arkana waa 70 kaas oo la leeyahay 70 ku waa hogaamiyaasha madaxdooda ayaa 70 ahaa laakiin gadaashooda ayaa waxa taagnaa 15,000 tira lagu sheegay 70 kuna waa la sheegay ilaa 80,000 oo saaxirna waa la sheegay dadkani marka saxarada ahay waa dad wadankii Masar oo dhan laga soo ururiyay waana dad tiradoodu ay sidaa aad ugu fara badan tahay baadalku sidiisa banaanba wax ka badan yahay daba saaxiibayaal halkaasi barxada ayaa la isugu yimiday maalintii ciid ahayd oo wadanka Masar caanka ka ahayd meeshii markii la isugu yimidna nabi ilaahay Muuse iyo Haaruun ayana halkaas ayaa yimaadeen nimanka saxarada ahaa iyo nabi Muuse markii ay goobtii lagu ballamay ay wada yimaadeen oo ay soo wajaheen ayaa nabi Muuse waxa uu bilaabay inuu nimankan u waaniyo ka hor intuusan bilaabanin bandhig waxana uu ku yiri waylakum la taftaru ala allahi kadiban fayusxitakum bi'adabin wa qad khaba man iftara warnimayo ilaahay ha ku been abuuranina jooga nimayo waxaad sameeynaysan waa been abuur iyo sixir aad kaga hortagaysan dacwada ilaahiga nimayo jooga yaana cadaab alle aana idinku dhicin intaasi markii uu yiri ayaa nimankii saxarada isku laabteen deedna waa ay murmeen dhaxdoodii ayaa doodi ka dhacday warninkani armuu nabi yahay warninkani waxa uu sheegaya oo cadaab ah oo noogu goodinayo ama xaqiiqiyin halkaasi ayaa ay nimankii ku murmeen fatanaazacu baynahum qaar baa yiri warninkani waa saaxir sixirkiisa ayaanu doonaya inuu kaga adkaaro in haadani la saaxiraan yuriidaan an yukhrijakum min ardikum bisixrihima wa yadhhaba bi tariiqatikum al-muthla labadani waa laba nin oo saaxiriina waana niman rabo horumarkiini iyo wixii adinku aad goonida la ahaydeen oo aad garanayseen sixirka wixii inay dadka ku qabsadaan ayaa ay rabaan nimankan aynu iska dhicino sida ayaa ay yiraahdeen ugu dambeynna waxay go'aan ku gaareen in nabi ilaahay Muuse ay wajahaan goobtii ayaana sidaasi la isugu wajahay kadibna nimanka saxarada nabi Muuse
waxay ku yiraahdeen Muuse ma adaa tooranaya mase annaga ayaa tooranayn bandhiga ma adaa bilaabaysid mase annaga ayaa bilaabayno ila meeshan waxa la rabaa in qof walba uu soo bandhigo awoodiisa iyo waxa uu haysto suxaradani waxay doonayaan waxyaabo sixira oo dadkay ku indhasarcaadanayaan inay halkan ka sameeyaan si wixii nabiyullaahi Muuse uu la yimid oo xaq ah ay ugu buriyaan dadna nabiyullaahi Muuse wuxuu ku yiri toorta adinku bilaaba qaalu ya Muuse imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu nulqi Muuse adigu tooraba yiraahday markii hore ama anagu aan tooran dadna nabiyullaahi Muuse wuxuu ugu jawaabay bal alqu adinku toorta kadibna ulihii ayaa isa u sii daayeen hadii saa loo fiirsho dadka ay fiirshaanba waa intaasoo kun oo waxa weeye abeysooyin ah fa alqu xibaalahum xarkoodii ayaa isa u daadiyeen hadii indhaha lagu qabtaba waa abeysooyin iyo masas saa isu dibdhaafay waa ka ilaahay quraanka kaga warramayo oo dhahayo saxaru a'yuna naasi wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim dadka indhahoodii ayaa ay sixreen waana dadka ay cabsi geliyeen sixir aad u weyn waa ilaa yimaadeen nimankani laakiin sixirku sidii ilaahay kaga warramay quraankiisaba waxa weeye waa kaydu saaxir inma sana'u kaydu saaxir wala yuflihu as-saaxiru haythu ata nimanka ayaga markay tuureen xarkoodii iyo ulihii waxa ay wateen oo meeshaas ay bandhig aan caadihin ay ku sameeyeen nabiyullaahi Muuse naftiisa ayaa cabsi gashay arma nimankani ay dadkan daawanayo tirada badan oo malaayiinta gaaraya ay maartay fidnayaan ay cabsi geliyaan fa awjasa fi nafsihi khifatan Muuse deedna ilaahay baa la hadlay wuxuu yiri qulna la takhaf innaka anta al-a'la Muuse ha cabsanino ha baqin nimankani waxba meesha may keenin adiga ayaana ka sareynay wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u gacantaada waxa ku jira usha ahna ku tuur baa leer waxa ay keenan oo sixir iyo xarig ah ayay liqaysaa inma sana'u kaydu saaxir wala yuflihu as-saaxiru haythu ata deedna nabiyullaahi Muuse masaskoodii oo saa u yaacayo iyo abeysooyinkii balaayadii ay u shiisiisa uu sii dhaxdaayay hadii uu ku sii daayaba waaba abeyso ama maska weyn wixii ayaga ay keeneen deedna waxay bilowday inay dhammaantood ay liqdo oo bidix inta ka bilowday midig kaga baxdo oo kulli ay caloosha gashato wax alla wixii ay keeneen ayaa ay saa u liqday abeysadii ushii nabiyullaahi Muuse ka dhalatay hadaba saaxiibayaal nimankii suxarada ahaa ee Fircoon uu Masaro idilka keenay markay ay arkeen mucjisada uu la yimiday Muuse nabiyullaahi Muuse way ishayn waayeen sujuud ayaana ay la daateen indhaha markii ay ku dhufteen wixii ay sameeyeen wixii lagu sameeyay bandhigoodii iyo ulihii si ay u sii daayeen xarkihii masaska ay ka dhigeen wixii ku dhacay markii ay arkeen oo ushii nabiyullaahi Muuse maski ka dhashay uu ku sameeyay nimankii way ishayn waayeen waana ay daateen oo sujuud ayaa ay la daateen ilaahay baan halkaas ugu sujuudeen waxana ay garteen waxana inaanay ahayn sixir nimankani waa niman suxara ah oo sixirka iyo qaybiisa kala duwan garanay sida daradeed laguma qiyaami karo wax sixir laakiin waxay ogaadeen waxaan Muuse la yimid inuusan sixir shaqo ku lahayn oo mucjiso ilaahiya ay tahay ilaahayna uu nabiyullaahi Muuse soo diray oo nabiga kadibna halkaasi ayaa ku daateen fa ulqiya as-saharatu saajidiin halkaasi ayay sujuud kula daateen qaalu aamanna bi rabbil aalamiin rabbi Muuse wa Haaruun caalamka dhan rabbigiisa ayaanu rumaynay ayay dhaheen nabiyullaahi Muuse iyo Haaruun ilaahooda ayaanu rumaynay ninkii Fircoon ahaa aad buu u fajacay waxa dhacay buu la yaabay dadkii uu Masaro idil ka soo arooriyay oo qarashku kaga baxay oo halkaas uu keenay ayaa marqura ninkii Muuse ahaa isku dhiibay oo ilaahi Muuse rumeeyay markaas uu imtixaanaad la dhacay wuxuu yiri aamantum lahu qabla an aadana lak war ma anoon idin fasaxin baad rumaysan oo Fircoon talo hadii ku talo weydiistaan oo ninka miyaan rumaynaa ay yiraahdaan nabiyullaahi Muuse ilaahiisa miyaan raacnaa nabi Muuse miyaan rumaynaa hadii ku talo weydiisan lahaayeen Fircoon miyaad u fasaxi lahayd hadigan oranayo aamantum lahu qabla an aadana lak war ma anoon idin fasaxin ayaad ba ninkii rumaysan innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr deedna waxa uu bilaabay inuu ayagii tuhmo inay ayaguba sixirka asaga ka soo barteen innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr marka horeba sixirka taqayneen asaga ayaad arday u ahaadeen oo asaga ayaad ka soo barateen buu yiri Fircoon ayaga ayuu xisaabta ku gudiyay waa nin shaydaan oo diktaatoor oo aan ilaahay rumaysnayn wuxuu diidayaa marka in ilaah aan asaga ahayn ilaahnimada asaga uu sheeganay in laga hoos baxo oo ilaah kale oo ay dadku ay aadaan ayaa uu diiday nimankan kibriya qooqay diktaatoorada mar walba waxay jecel yihiin shucuubta ay xukumaan in saa ay madaxa kaga fadhiyaan oo ay haystaan oo ay waxa way ku diktaatoorayaan ay rabaan mana doonayaan dadku inay wax fahmaan oo ayaga laga hoos baxo hadaba saaxiibayaal Fircoon waxa uu bilaabay inuu u goodiyo nimankii suxarada ahaa nabiyullaahi Muuse ma uusan aadin nimankii suxarada ahaa ayaa meel kaga soo haray wuxuu yiri law qat'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaaf tii xumeed baan idinku dhigaya war ninkii aan idinku yeeray inaad ka raaysan miyaad maanta ii rumaysan gacmaha iyo lugaha ayaan si isweydaara idin jaraya buu wala ta'lamunna ayuna ashaddu 'adaaban wa abqa ilaah Muuse aad sheegaysaan iyo anigana cid cadaab daranna waad ogaan doontaan dadna nimankii suxarada ahaa waxay ahaayeen niman xaq arkay xaqana fahmay waxa weeye warkiisi dhig jalaq umaanaysiinin Fircoon waxay yiraahdeen nin waxaad ka badin weyso yeel anagu xaq baanu aragnay xaq ayaan raacayna waxa doontana sameey waxay yiraahdeen lan nu'thiraka ala ma
ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. فرعون أديك كادورا مين وحي حقه وأنا أرجعني نما كان حق بأركان حق أي أركان نما كان ونبي الله موسى وحي وسميه معجزاتها أي إنها رفتين مركو حين وحي حق وأنا أرجعني ومعجزة رباني وإلهي صدر إيه أديك فرعون كادورا مين فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا واحد انتصمي واحد كبدين ويسو يا الفرعون الدنيا أنبض أود كل هذا أي أنبضنا وإحنا وحكم يسار لكن حق أي آخرها دليل هذا إلهي بحكمية وإسكال أذون وحكمتين إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إلهي بان أطوبك كأني وحي السحر أو النبو قصبتي إيه بلايد أن نجلسان إلهي بان وكغل عبرنا نمن كيسو حرضها سدا أي أوهلين فرعون وأيديدين وركيسي لكن فرعون إسلام مركب عيدنك أي أمري سحرذي لورك كن أهل وإلى سديت كان كل له شيء أركض أيها وننكي فرعونها عيدنك كفصح لأن عيدنك بقى قبطي لما أنتوا دول السلبي لا حدا لو صار تيرك توغشد أي لو دقي يعني لوك إصدافة أي الله شري هذا عيد أي اللي جتك إلى أي لما أنتوا أي نف بحين منكاس أي جاء هالكاسي أي فرعون كوجو ماضي نمك أي هاي مسلمين تها النبي الله موسى راعي الرومي هالكاسي أيانو كجت تخلص سو ضدك أنت كلا مصر وجوكتي حل جاسي عبرة وقدقي أو يرنينك موسى راعو وحنا منك كل عي يوح كدرن أي سوي هذا بس حبيال سيداسي أي كسو جبودي قصدي سحرة يفرعون إلى نبي الله موسى وحوي أحمرته هذا بس حبيال هالكن سو قرتي أدبادو ما صنتي ورشة مقال كداوتي كنا سبسكرايب صار صاحب كلودك أدبادو ما صنتي الله سعو مقال كحوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.